madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wafdi hogaaminaya ayaa ka duulay garoonka Kanooke magaalada Garowe iyagoo ku sii jooda dalka Imaaraadka Carabta. waftiga hogaaminaya madaxweynaha waxaa sii sagootiyay qaar ka mid ah labada gole ee dowladda Puntland. intaysan duulin ka hor ayaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas la hadlay warbaahinta. ayaan u socdaa insha Allah waxaan rajaynayaa in uu guul ku soo dhamaado haddii aan aragno inuu maslaxada dalka iyo dadkana ay ku jirtaan insha Allah heshiiskaasi inaan la galno dowladda Isku Imaaraadka Carabta si marka kaabayaasha dhaqaalaha aanu u casriyeyno u ballaarino mustaqbal wanaagsan ay u yeeshaan dadka insha Allah marka kabacdina dadkan ku soo laaban doona khayr iyo jawi idin rajaynaya ilaahay muddo khayr qaba iyo roob hana siiyo ilaahay abaarta naga saaro ilaahay nabadgelyada ha noo adkeeyo aad iyo aad u mahadsantihiin. Cabdiqani Axmed Maxamed Cabdiqani Fantastic TV-ga caalamiga Home Cable Garowe.